nin xanuunsan oo madaxa looga jiro oo maalmaha kamid intuu meel wada fadhiistay dhulka saa u xarxariiqaya ayay haweeney soo agmartay dadna waxay ku weydiisay waxay ku tiri maxaad moogta dhulka wax xarxariiqaysaa intuu saa soo eegay wuxuu ku yiri jannadii ayaan gobol u qaybinayaa marka haweeneydii inta xaaladiisa ninkii ka yaabtay ayay ku tiri marka waa yahay gobol ma iga gari kartaayo gobol ma iibsan karaa xaabuu ku yiri 20 riyaal hadaad iska bixiso gobol jannada aad helaysaa idna 20 riyaal ee moogta lacagtooda ahayd bay siisay cunana way ugu dartay kaliya iyadu waxa u turaysaa oo ninkan moogta xanuunsan iyo xaaladiisa inta ka nacday ayay moogta Ilaahay ku rooyeen ya miyam xaaladda markay yaa ogo la socda Ilaahay baa og Ilaahay cajiib Ilaahay waxba lama aha inuu jannada 20 riyaal baa sheegaysaa qofka uu doono bilaash uu siiyo deedna habeenkii bay seexatay haweeneydii waxay ku riyootay iyadoo jannada gashay farxadii intay sayn weyday ayay subaxii soo kacday saygeygii bay ugu warantay nin iska lacag leeyahay waxay tiri niyo shalay qisadaasna sameeyay xalayna riyadaasan ku riyooday ninkii waa soo orday subaxii dambe odaygii miskiinkii waa laabo yimid wuxuu ku yiri niyo jannadii ban dooraya qirca kale inay iga iibiso ninkii waa la markiiba uu fahmo wuxuu ku yiri jannadu wax moogtay la iibiyo oo lacag waxa uu qalanta ma ahe oo iskaga tag buu ku yiri meesha oo shalay wadigii xaaskay ka iibiyay xaaskaaga wuxuu ku yiri janno ma aysan iibsanin xaaladdeeda intay ka yaabtay ayaa hadii Ilaahay ku rooyay si ay caawisahay saa u sameeyay marka adigu waxa doonaysa janno oo kaliya weeyaan janno lacag laguma qiimeeyo iska tag buu ku yiri xayiraysan mar walba khayr aad arkayso xayiraysan waxa laga yaabaa waxyaabo waaweyn oo sameeyno salaad iyo soon iyo waxyaabahaasi inay Ilaahay agtiisa ayna waxba ka noqonba wax yar oo moogta hadii Ilaahay ku roon yahay aad qalbi u sameeyso inuu Ilaahay jannada ku galiyo ayaa laga yaabaa marka khayrka sidiisaba lama yareys. Assalaamu alaykum.